isla markii uu ninku ku degay meeraha maaris dhibaato weyn ayuu galay. mar kasta oo uu isku dayo inuu socdo wejiga ayuu ku dhacay isagoo xanaaqsan ayuu dhagax cirka u tuuray balse si lama filaan ah dhagixii wuu baabay oo indhihiisa ayuu ka luntay. markaas ayuu fahmay in cuf isjiidadka halkaas uu aad uga yar yahay kan dhulka. sidaas darteed wuxuu go'aansaday inuu isticmaalo qaabkiisii hore ee boodboodka. 2 ama 3 bood oo waaweyn kadib si fudud ayuu ku gaaray cagta buur ku taalay meel ku dhow 10 mayl. laakiin markaas ayuu arkay iyaga makhluuqaad dhaadheer oo ku dhow 2 mitir kuwaas oo si caro leh ugu soo ordayay. markii hogaamiyahoodii weeraray ninkii hawada ayuu sabayn bilaabay. hogaamiyihii aad ayuu ula yaabay weligiis ma uusan arag noole sidaas u booday. si degdeg ah ayay u qabteen waxayna geeyeen qabiilkooda iyagoo ku qasbay inuu mar kale sameeyo boodkiisa cajiibka. markii uu diiday hogaamiyihii aad ayuu u carooday. way silsiladeeyeen waxayna ku sameeyeen ciqaabo yaab leh. hitaa way ku qasbeen inuu qubaysto oo wejiga uga mariyeen wax la mid ah dhoobo qalan. markuu waxaas oo dhan arkay dhiiggiisa ayaa kacsaday. habeenkaas ayuu qorsheeyey inuu baxsado laakiin albaabka qolka waxaa waardiye ka ahaa ey buuran oo makhluuqaadka ka mid ah. si aamusnaan ah ayuu silsiladii isaga furay dabadeedna hal bood ayuu kaga fakaday.